kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay gobolka Tigreega duuda gobolka Tigreega oo isku farasaareen ciidamada dawladda federaalka Itoobiya iyo kooxda TPLF oo la soo baxday awood cusub isla markaana militariga Itoobiya meelo badan oo la isku farasaaray ay kala wareegtay xukuumadda Abiy Ahmed oo markaan u muuqatay in xaaladdu ku culus tahay kooxda TPLF waxay dib u soo abaabushay ciidamadeeda iyo maleeshiyaadkeeda waxayna furimaha dagaalka ka sameeyeen maalmihii la soo dhaafay arrimo la yaab leh waxaa muuqatay in goobihii la isku farasaaray ay inta badan la wareegtay kooxda TPLF magaalooyinka iyo furimaha u dhow gobolka Tigreega iyo xuduudda uu la leeyahay deegaanka Amxaarada ayaa waxaa la sheegay inay TPLF la wareegtay goobahaasna ay ku jabeen ciidamada Abiy Ahmed ama kuwa dawladda Itoobiya ee federaalka haddaba maxay tahay sababta inay ciidamada Itoobiya ku jabaan goobaha iyadoo maalmihii la soo dhaafay la xasuustay inay dagaalka ka gaarayeen guulo waaweyn isla markaana dawladdu ay ku baaqaysay inaan wax wada hadal la gelin kooxda TPLF ayaa waxay maalmihii la soo dhaafay culaysyo badan soo saartay furimaha hore ee dagaalka kadib markii ay sheegeen inay u bedeleen kaartada dagaalka waxaana muuqata inay dib u soo abaabushay maleeshiyaad aad u xoogan isla markaana ciidamada militariga Itoobiya looga awood roonaaday goobihii la isku farasaaray dawladda Eritrea waxay laftirkeedu difaacanaysaa gobolka Tigreega qaybta ay la leedahay xuduudda waxayna halkaasi dawladda Eritrea ay ku soo daabulaysaa ciidamo haddaba Abiy Ahmed ayaa weli wuxuu u muuqdaa inuu dagaalka maalmihii la soo dhaafay uu raadinayo inuu ku gacan sareeyo maadaama TPLF ay u babacdigtay maadaama ayagoo halkaasi laga waday duqeyn xagga cirka ah diyaaradaha Turkigu siiyay iyo kuwa militariga Itoobiya ee F-15 ayaa duqeymaha ka qayb qaadanayay waxaana la sheegay in gobolka Tigreega ay ka geysteen duqeyn aad u baahsan walow kooxda TPLF ay sheegtay inay dagaalka guulo waaweyn ka gaartay isla markaana ay hore ugu sii siqi doonto tan iyo intay ka saarayso maleeshiyaadka ay sheegeen inuu Abiy Ahmed ku soo abulayo gobolka Tigreega waa sida uu sheegay afhayeen u hadla kooxda TPLF haddaba maleeshiyada TPLF ama kooxda TPLF ayaa waxay maalmihii la soo dhaafo oo dhan ka cabaadaysay duqeymaha xagga cirka ah oo diyaaradaha Turkiga weli ka sii wadaan gobolkaasi Tigreega iyadoo dawladda Itoobiya ay ilaa hadda u caaladahay sidii kooxdaasi looga adkaan lahaa walow dawladda Itoobiya ay sheegtay inay dhawaan qaban doonto doorasho markii ay sheegtay in kooxda TPLF ay ka awood roonaato isla markaana inta badan ay ka qabsato dalka intiisa badan walow kooxdu aysan ilaa hadda laga adkaanin dawladda Abiy Ahmed hogaamiyo ayaa waxaa la soo warinayaa inay qiimaha dagaalka kala baxday dhaawacyo iyo meydad badan isla markaana goobaha qaar ay kaga carareen baabuurta waaweyn ee qoryuhu saaran yihiin sida shilkayaasha beebayaasha iyo taangiyada uuraalla ayaa ka mid ah waxay dawladda Itoobiya sheegtay inay halkaasi dagaalkii ka dhacay ay guulo ka gaartay kooxda TPLF ayaa soo bandhigtay hubka ay ka qabsatay dawladda Itoobiya wax cusub ayaa la sheegayaa in gobolkaasi ay iyagu laftirkoodu dagaal ka bilaabeen walow ay kooxdani tahay jamhad cusub oo hadda la aasaasay isla markaana ay garabsanayaan kooxda TPLF iyo kooxda oromada u dagaalantay ee jamhadaha ah walow kooxdan cusub ay sheegtay inay ka xoreyn doonto deegaanka ay ku nool yihiin dadka canfarta oo inta badan u badan dad muslimiina sida ay sheegeen kooxdaasi walow la leeyahay kooxdani waxay xiriir la leeyihiin kooxaha islaamiyiin oo ka dagaalama gudaha Soomaaliya iyo wadamada shisheeye walow ilaa ay hadda warkaasi aan si rasmi ah loo xaqiijin karin kooxaha lagu eedeeyana aysan si rasmi ah u sheegin inay ayaga garab u yihiin walow dawladda Itoobiya ilaa hadda ay sii wado dagaalka ay kaga soo horjeedo kooxda TPLF waxaana maalmihii la soo dhaafay dawladda Abiy Ahmed uu hogaamiyo ay furimaha dagaalka ka sameynaysay horsocod aad u ballaaran waxaana shalay iyo maanta la soo warinayaa in kooxda TPLF ay dagaalka ku awood sarreeyay saraakiisha arrimahaasi falanqeeya dagaalka ayaa sheegaya in kooxda TPLF ay dib u soo abaabushay maleeshiyaad badan oo gobolkaasi ka soo tagay isla markaana tuulooyinka ay ka soo aruuriyeen kooxda TPLF waxayna dagaalka sheegeen dadkaasi qobarada ah in kooxda TPLF ay markaan si weyn u difaacanayso gobolkooda waa haddii aysan dawladda Itoobiya joojin dagaalka ay kula jirto dawladda Itoobiya ee uu hogaamiyo Abiy Ahmed ilaa hadda lama yaqaano waxa sababay dagaalka ay TPLF ay ku awood sareydo waxaana muuqata in kooxda TPLF ay dib u soo abaabulayso maleeshiyaad iyo saraakiil
ay sheegeen inay dhowaan usoo xireen tababaro maadaama tan iyo markii gobolkaasi dagaalu ka qarxay ay kooxda TPLF tababaraysay ciidamo iyo maleeshiyaad iyaga u dagaalama waxaana lasoo warinayaa in kooxdaasi TPLF ay si weyn iskugu xiran yihiin maleeshiyaadkooduna yihiin kuwo si aad u qalabaysan hubka noocyadiisa kala duwan sita waxaa la xasuustaa in gobolka Tigray markii dowladda Itoobiya gashay ay ka soo baxday 2 bilood kadib iyadoo kooxda TPLF halkaas la wareegtay dad shacabana ku leysay kooxdan ayaa ilaa ay hadda waxay beesha caalamka ka dalbanaysaa in la joojiyo xabadda dowladda Abiy Ahmed uu hogaamiyo ayaa si cad u diiday inaysan wax wada hadal la geli doonin kooxda ilaa ay inta ay ka saarayaan deegaanadooda isla markaana waxay dowladdu dhankeeda sheegaysaa inaysan gelaynin gobolka Tigray walow dad meesha ku sugan oo la hadlay warbaahinta Reuters ay sheegeen in ciidamada militariga Itoobiya ay gudaha u galeen gobolka Tigray arrintaas oo beesha caalamka si weyn u soo jiidanaysa haddii militariga Itoobiya ay dhab noqoto inay dib u galeen gobolka Tigray tan iyo markii ay ka soo baxeen Abiy Ahmed ayaa waxa uu hadda hab diblomaasiyadeed ku raadinayaa in dagaalka uu sii socdo kooxdana ay loo arko inay tahay koox laaga ah isla markaana aan rabin in dowladda Itoobiya ay mar kale lugaheeda isku taagto waxaan ka codsanaynaa daawo inaad muuqaalka share sii tiraada lana wadaagta saaxiibada YouTube-keena subscribe saarto si ay noogu soo biiraan dad wanaagsan sida adigoo kale